kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayale sida tooska ah hawada nooga daawanayo halkani waa xafiis goboleedka Xurriya TV ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadkan waxaan ugu soo booqday studio-geyga magaalada Burco Cabdiladiif Xaaji Muuse oo loo yaqaano Kennedy kana mida haldoorka aqoon-yahanka ama suugaanyahanada gobolka Togdheer ee sida badan wax ku qodora arrimaha bulshada iyo dhaqanka Cabdiladiif waad nagu soo booqatay toddobaadkan barnaamijyo fara badan baynu ka hadli doonaa waxaa tahay inta badan wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo sooyaalka taariikhda arrimaha Soomaalida ku soo dhawow studio-ga Xurriya TV ee magaalada Burco abdi aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan u soo dhaweynayaa TV-ga Xurriyo oo aan maanta igu soo booqday xafiiskiisa inkastoo aan islaha balaad nimanku bal waxay meesha ku hayaan soo dulmartido soo eegtido oo aanan de barnaamijyo aan wala diyaar baahayn hadana yeelkeeda mar hadii la hayo de nin la qabtay ama sidan yeelo wuxuu bay noqonaysaa in aanan meesha faramarlaan aan kala tagin ee wixii aynu ka gaari karno aynu wax ka nidhaano hadii ay barnaamij tahay hadii ay sheekooyin tahay hadii suugaan tahay hadii arrimaha bulshada tahay dhinaca aynu wax ka taaban karnaba aynu wax ka taabano abdina waxaan oran lahaa waa marka ftamina saake mala magacadin badan ugu tukumasay boocaad saaka la heshay Kennedy baad la heshayo wadiga iska raacsaday yeelkeeda Kennedy way iska wada diidanahay bal waana aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa TV-gan aad baan salaamayaa waxa jira barnaamijyo fara badan hadii beeda ka leeyahay social media ku jira kuwa qoraala iyo kuwa maqal iyo muuqaal duubtayba kuwooda sida farshaxanimada la runtii aad soo diyaarisay ee xiisaha leh aan si dadka dhaqankooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda waxay ka bedelayaan waxa kamida mid aad imika qayb ahaan aad duubtay baan filayaa oo qabyaalada aad kaga hadlaysay waxaan filayaa inay jiraan qaybo kale oo barnaamijka daba socday balka waran barnaamijka qaab nooceed baad u diyaarisay fariinta si uu gudbinayaa maxay tahay abdi aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkaasi wuxuu la socday barnaamijyo taxana ahayo hore aan u sii deynay waana mowduuc mar walba iska asaasiyo oo in bulshada lagala hadlo ay tahay oo waliba aan waan oran lahaa hadii dadku qofku isagoo mowduuc kala ka hadlayo inuu daily life-ka oo kala hadla ay tahay waayo bahasha geyga Soomaaliyeed iyo meel wal oo ummadda Soomaaliyeed ku nooshay waa waxa curyaamiyay qabyaaladu noloshooda aadka u taabtay barnaamijkaasina barnaamij dheer buu ahaa oo qaybo fara badan oo bahasha ka taabanayo oo qaybtii si diiniyana u taabanayo oo si dhaqamiyana u taabanayo meelo badan ka taabanaya isagoo oo waliba la hadlayay daayarta oo inay bahashan bal iska nadiifiyaan kala hadlayay laba qodob baan ku wareegay oo message-kiisu ahaa in dadku kala fahmo qabiilka iyo qabyaaladda oo dadku had iyo jeer marka ay qabyaaladda ka hadlayaan waxa jirta in badan oo qabiilka iyo qabyaaladda kunta ka wada goysa dabetana dadka waxa loo tilmaamay in qabiilku isagu ishirkii yahay kayn la isku xidhiidhiyo u yahay ayaan tilmaamayno sidaas uu rabbina inoo sheegay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam uu inoo sheegay oo uu leeyahay rabbi ya nasina khalaqnaakum min dhakrin wa unsa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum in la isku barto oo la isku xidhiidhiyo oo bil mesela qofku marka imaka la leeyahay silatul arhamka qofku wuxuu leeyahay bil mesela qabiilku waxa ugu sareeya horta shacabka ugu sareeya qabiilka ka hooseeya qabiilkii waxa cashiiro fasiilo oo rabileey wa fasilati allati tuwi يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وقيلها وعلى حقه وفسيلته التي تؤوي waxa ku sii xigta saasay kale hooseeyaan marka walka Soomaaliduna erayga shacabku ma la qaadanay inagu waxaan leenahay tol xigaal raas jifo sidaas aynu soo wadnaa isla sidaas un baa ay diintuna ay u taxantahay oo shacabka ugu sareeyo qabiilkii saasay soo kolosaya qofkii dabeetana marka aanu jirooyinka kala garanaynin sida ay isugu xigaan de waxa laale waxa xidhiidhinaysa ma jirto oo waliba daayatan dabo ay ku badanto marka la yiraahdo ninkana waa adeerka labaad ama waa aabaha inaabtigi ama waa qaraabadaadii dhaway laga yaabo qaraaba ka saxbaan ho ama meel baan iska soo galaa islaantu hooyaday bay xusiyiin ama aanu garanay badee macnaha qaraabadu leedahay macnaha qaraabadu leedahay aan garanayn marka hadii dadkii
iyadoo qabyaalad lagala hadlayo qabiilkoodiina laga dubiyo waxa soo baxaysa sida shucuubta kale ee maanta reer galbeedka iyo inay ay noqoto dabitana dad isdhex boodaya ay noqoto oo qabiilku in la adkeeyo oo riximkuna rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidoo loo sheegay wuxuu ilaahay ka codsaday markii uu lahaa cidda ku goysa ma ku gooya oo ilaahay waa jaray cidda ku goysa riximku aad ba diinteenu uga hadashay in la ilaaliyo oo rixim ahaan loo ilaaliyo marka barnaamijkaasi cabda wuxuu ka sheekeynayay oo ka warramayay in dadku qabiilkoodana ay bartaan qabyaaladana ay iska daayaan baasha qabyaaladii nafta isugu keentana ummadu ay ka dheeraato waliba daayirto ay ka dheeraato waayo dadkii hore iyagoo qabiilka yaqaana ay qabyaalada isticmaali jireen maanta laakiin waxa soo baxay qof aan qabiil la garanayn qabyaaladna isticmaalaya dabeytana baasha xitaa intii la isu joojinayo dadkii hore iyagoo wax u xeebanayo oo xeerinaya ayay iyagoo wada socday haddana kala socon jireen oo bahal hawl badan ayay waxba isdhex wadeen laakiin ninkan maanta wuxuu la soo taagan yahay daayir yaa shamis waxa laga yaabaa inuu halkii raaskiisii ama halkii ugu hooseysayba oo bahashi ka bilaabo marka inta badan qabyaalada waxa ku dhagu ah in fikir laga dhigo wixii soo qofku cid ku dulmiyaya ama sid aan lahayn ku raadinaya oo sidursiyan nolol ku raadinaya haddii noqon lahayd mid siyaasi ah haddii noqon lahayd mid dhaqan fikirkaasina dadka Soomaalida aad buu ugu badan yahay isaga saameyn inta leeg buu ku yeelan karaa marka in dadka Soomaalidu ay noqdaan dad nolol haddii beedankeedii leeyahay isku xidhan noloshii la yaqaan bersamaadkii ahayd nidaamka iyo maamulka iyo ka dambeynta lahayd sida uu dhaawac ugu yahay marka qaabkaas horta cabda wuxuu ugu yahay bulshada dhinac walba horta qabiilku ka dhaawac qabiilkana waxa kale gadisan ninba sidoo shaarka ugu xidhay ugu baadi doonto oo wax ugu doonto nin waji siyaasiyaba wax ugu doonta qabiilka dabeetan intuu halka dhexiriyo ayuu ugu doontaa nin ganacsi buu ugu doontaa nin dagaal buu ugu doontaa nin bashaad ayuu xidhaa oo iyada waxa ay dadka sida shaararka markay u xidhaan ay u kala yeesho ayuunbay u kala farabadanta baashuna waxay leedahay waxyaabo farabadan oo dadka ku kalifo oo hadii la yiraahdo qofka war qabyaalada maxaa laga siiyaa dadka qaar baan sharaxi karin boo qoranaya oo iyadoo dadku ba wado islaantii lahayd hebel gurigaaba ee la yiri ku yiri maxaad ku aragtay tiri dadku ba waa laha waxa oranaya dadku wax buu qabyaaladeynay bahalaha ugu waaweyn waxa ku jirtay marka barnaamijkeena hore oo kale bahasha waxyaabo ugu waaweyn ee dadka ku kalifaa waxa weeye faanka ama ananiyada in waliba iyo qabka oo reerkiisa madaxa ku sito dabeetana la yahay annaga sidaas waxa salaam ku jirtay wad bulshada dhexdeeda ka arkaysa marka la isu faanayo hadii aan ku faano oo aan ku yiraahdo awogay wuxuu ahaa ama reerkaygu wuxuu ahaa reer noocaas oo baliya baas oo dadka dhaca oo aan dhinac walba oo laayaan oo noocaas aan ku yiraahdo isla aduguna markiiba wadi bareeynaysaa wuxuu oranaya ninka kalena warniyo reerkiinu waa saleele odayii hebel loo oran jiray reerkaygu ha reerkayga geeyiga reer ka baleysana ma jirin isla in yar ka bacdi ayaa baan qoranaya aniga odagii awogay aan ku sheegay arlada waala iyo barigi dambe ilaahay xagga rabbi baa nas looga soo rogayo intu sida halkaas ka joogay xajka qabtay oo cibaadadiisa iska watay oo dikrigiisu barigi dambe waxa faraaba uu kala soo baxay oo umada ilaahay nin kala jecel mu ahayn jin iyo insiba umada ilaahay saadin sugu wadaha marka cadal waxaan ku weydiinayaa in kasta taaynin hadal iyo hawraar ba dadka qabyaalada ka wacyi galiya iyo hadii ay noqon lahayd been aad ugu qorto fariinta aad marka dadka u diraysaad leedahay bahasha sida xun loo isticmaalayo ka dheeraada fariinta kama dambaysta taariikhka ku aadin wax fariinteeda arka horta ku aadan cabdo intaanan message-ka fariinta aynu dirayna aynan u gelin oo fariinta dadku marka mawduuca laga hadlayo qaarba waxbay kala soo dhex baxayaan taa la wada lafteeda duubano qaar baa qabyaaladii lafteedii la dhex cararaya oo oranaya ninka barnaamijka daadiinaya kan isanaya iyo wax sida u dhex wado qaar baa xitaa waxay ku raaxaysanayaan qabiilka la kala wada iyo waxa laga sheekeynaya dadka qaar baa qabyaalad u yaqaano bahashi la dhex hordaaya bahashana wax allaala hadii la ilaahay maxay diga cabaya in badan oo waliba dadka intiisa fara badan leh waxa allaala wuxuu uga cabayay ku akhrisigayaan ma jirto waxay u tahay bari baa wax dhacday laba reer ayaa isleeyay dabaytana
waxa la wixii wax garad iyo culimaa u diin geeyga joogtaba mikrofoonada qaatood bitana waxa la yiri dadka islaamka ee walaalaha waa dagaalada Soomaaliyeed iska soo noqnoqda ninka ku dhinta aakhirina artu galaya waa ahlunaar ninka qol muumina u qaada oo ilmo nabi aadan bada wad garanaysa markii ay seeftay soo qaateen habiye qaabin mid baa wuxuu yiri anigu qacan ku qaadi maayo inni uriidu anta bu abismi wa ismika fatakuna min ashabina anigu qacan ku qaadi maayo kii dilay waa ahlunaar kiisna wuxuu ku leeyahay nin kasta oo dunida wixii ka dambeeyay qof dilay qayb ku leeyahay way sunnah buu jiray oo ma sanna sunnatan sayi'atan falahu ajru misl fa'ili wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay sidii wixii ka dambeeyay oo dhan wixii sameeyay laakiin marka aadna sayfta igula soo boodo kana uu kula soo boodo labaduba kana uu iska caabinayay kana waa la dilo labaduba oo isla helna rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu sheegay tabeetana markii ay islaayeen baa la yiri waryaareen waxaynu yeelaa culimadii waxa la yiri ninka dagaalka ka dhinta naartu galaya oday baa loo tagay odaygoda ka qabiil abu hadda bitana waxa la leeyahay ka warrado bitana wuxuu wallahi aad sida culimadu sheegtay ninka dagaalka ku dhinta naartu galaya laakiin inta xaqana reer hebel ninka xaqana reer hebel ninka xigo labadii reer ka dagana hareeraha ama marka dagaalada iyo waxaasi ka dhaxinay inta xaqani ninka xigan kulaba janna arkamayne inamada hal la diro baasha tabaytana dadka waxa ku qil sameeysanaya wuu qil sameeysanaya tabaytana salafkoodii baa meel dhow dadkii laga istaaraya waxa kamida marka ay istufaanayaan waxyaabaha aadka u la yaab kale laba jeer imika laba nin oo Soomaaliya hadii ay istufaanaan oo qabiilka isla marka ku xigtaba waxa loo yaacay qubuuraha waxa la oranayaa odagii hebel ee tijaarka ha anagu ha odagii hebel ee dagaalyahanka ha anagu ha odagii hebel adhilaha anagu ha dadintaba hayo laga ciidina kama dhimato qubuuraheenan in barbar digeen qaarna way jinaysan qaarna way naaray laakiin waxay nugula nool yihiin waaqac Soomaad garan way ninkana istaba wada oo ku faanayo oo cad laala ciidina ka dhimata ma jirto waana sida rubilayaa laha ku mutakaasir hatta suurtu min maqaabil waxay idin halaagay waxbadsiga marna waa xoolihii marna waa dadkii oo ilaa qubuuraha boqoteen oo ay soo sida sheegnaba tafsiilka laftiisa culimadu maraan inkastoo ay xoolaana dhinac lagaga sheego dadkii dabeetana ciidina kama dhimanayso xitaa qabyaaladu ma kala laha waa nacas iyo fari oo dhacday laba reer baa islaayay dabeetana reer weerar gaadma ku soo qaado dabeetana iyagoo barqadii hawlahooda iyo shaqooyinkooda iska wata mar kale iyo weerar ku horreeyay dabeetana dadkii waxay noqdeen waxna waa kale yaacay waxna guriga xidhano dabeetana qolo xidhataba nin ku soo carada ninkaas wuxuu bulshada ka dhaxaha nimaan tirsanayno ay nacsu tiriyaan dabeetana albaabkii mar soo galay ku soo garaa marka si war iga fura marka salay war adiga ciido ku dilmeysay iska joog marka si war waa buntursiga iga fura ila waxay oranayaan intaas liber ka dilayo garabaaya nacas buu ahay reer hebel u baahay meesha la iga furo baashu marka horta umada Soomaaliyeed dhinac walba way u mushaahday oo way u gashay masaajidadii bay gashay oo guryihii bay gashay oo ganacsigii bay gashay oo siyaasadii bay gashay dadkuna waxa uu ku aakhira seegaya intii safra badan waa hebelo dana gaar leh hebelo dana gaar leh way meel qabiil ku shireeyo meel qabiil oo ku goosta dadkani ma oga dadkan caamada ee maalin ba inaan bayntu gaari baasiin ugu soo shubo qoriyeen oo dhibo oranay reer hebel baan ku kicinayna mariya waa maalintu maslaxadiis reer hebel ka fushadane xoranay nabad baa jirta maalinta uu ka waayana xoranaya waxba ma jiraan oo meeshan hebel waxba inoo yeelna dabeetana yana xoranaya odaygayagii ayaa yimi aakhirana qiil ay u noqonayso ma jirto isaga qorga dabka la ordayay ma garata marka ta aynu miisaska aynu dirana waa ka in bulshadu waliba inagu baasha hadiya jaraale way waxaad moodaa inaan ka baqano warba in laga sheekeeyo oo la gorfeeyo la yiraahdo qabyaaladu waa maxay qabiilku muxuu ahaa farqiga u dhaxeeya waa maxay qabyaaladu maxay inoo jirtaa maxay inaga biisa sidee u kala weyn tahay oo wixii hab cilmiyana wixii marka loo gorfeeyo wax laga yaabaa in marka laga sheekaysto la wariyaahay waxba ma waxaan yahay aan dul taagnay rasuulkan kaleey waa kiila hadda uha faynaa mutina war ka taga waa baqti arqalada ugu weynay umada ku haysaana waxa weeye heer qaran ama heer shacab qofku uma gudbi karo haduu heer qabiil yahay oo bahali waa tarantaro haayo marka dadku magaalada degan yihiin nidaam dawliye iyo xadaarad iyo magaalo ka shidaal qaadanayo qabiil baan isdhex wadaya ma suuroobiso qabiilku boos buu leeyahay oo cuntamo waa miiga iyo baadiyaha marka la joogay nin waliba beertiisa iyo xoolihiisa wato ee subaxdii dhinac doono u foofayo ayaa qabiilku had iyo jeeraale intii isku qabiilba meel isku xirta
laakiin dadkii markuu sinta isku wada qabsaday ee dawlad wada yeeshay ee madaxweyne wada yeeshay ee golo wasiir iyo baarlamaano iyo madarisada iyo malcaamado iyo ganacsi la wadaagay haddana feeraskii qabyaalada la dhex wado uma cuntamaso umamka imika waxa jirta ummadda Soomaaliyeed waa ummad islaama waa ummad marka ummad ahaan loo eego marka aan jabkoodan loo xisaabin ummad ahaan ummadaha kama liidato wadada ama afkeedu qani yahay ama dadnimadeedu wadada firfircoon wadada aynka kana haddana waxa dadka hoos mariyay ay nidaam meel ka hirgala ay waxaysan kari leeyihiin waa qabyaaladan waayo umabay gudbin heerkii shacab waxaana laga yaabaa imika haddaynu u tagno umamka kale dad iniga cawaana oo looda caabado oo cawaana oo haddana nidaam dooniyay ha waxay u gudbeen heerkii shacab marka qabiilka ilaa iyo aad heer shacab u tagto marka aad leedahay madaxweynaanahay ama wasiir baanahay ama aad tahay mujtamaci kamida ee aad u fikraysa si heer qabiile dawladnimada aad ka sheekeynayso de kama sheekin kartid wayna marka hore heer qaran timaada heer qaran oo inaan kan qabiilkaaga ah iyo inanka qabiilka kale ay isku shacabka tiina isku dalka tihiin isku danba iyo inaan tahay inaan ka iskuulka dhiganaya waxa la leeyahay kala qabiiladaysa ma jirto way labadanba isku dan bay u baahan yihiin inanka hadda wasiirka waxbarashada tahay waxaad la jeceshay inankaaga ama kula qabiilka ama aad dhashay ayuuba inanka kalena aad la jeclaan lahayd oo marka heer shacab u fakarayso laakiin microscope-kii qofka gaabanaya oo qofkiiba wuxuu noqonayaa qof aan xayndaabkoodii dhaafin mar alla marka la ilaa waxba la qabanaya wax kale kuma qusayaan waxaad ka dhexeegaysaa indhihii qabiilka ku dhexeegaysaa sidoo kale nin reebel dabeetana cadaalad baanad eegin aqoon baanad eegin horumar baanad eegin marka bahashu weyn cudhaadhay dabeetana qofkii ka tashan karaya waynu bustihiisa qaataa bal horta jaran shacabka inaga leh waynu nimadna eragan shacab way ku saangadanaa iyo qarannimada iyadoo nin waliba uu shaad qabiil xidhay magaca ku dhisay ayaa ku dulmanba wuu ku dulbay umabayna gudbin oo meelaha daranaysiina gameeyo dhadhawadi ilaa aynu heer shacab nimaadno oo bislaano wayn heerka shacab loo soo guuray dadku dabeetana markaas ay waxay noqonayaan inaad ka ummadda ugu jeceshahay ama aan aqoon ku raacday ama cadaalad ku raacday inuu ninka shan degan noqdo laakiin ay shacabka iyo qarannimada iyo dawladda iyo deegaankaas uu idinka dhaxeeyo noqdo way Cabdullaahi iftaa halkaas aynu dhignay waxaa jira barnaamijyo kale oo gabayo hadday noqon lahayd iyo heeso arrimaha xiiso badan oo badbaato laga dhamaan maayo cadaaladda san ku xasuustay waxaa jira sheekooyin runtii farshaxnimadooda aad uga helay oo ka hadlaya cadaaladdaas iyo kuwa iyo qudhoodu aniga qudhayda si gaar ay taabto ay kamid yihiin sheekooyin ka bargo oo kale sheekooyin aad leedahay umuraha Soomaalida oo dhan meel kasta joogan waa bargo sheekooyinka iyo qudhooda 2 iyo 3 waxaad ka gaarsiin karto barnaamijkan kastuu gabagabay yahay bal haddana ugu yaro dhufo cabdi aad baad u mahadsantahay waxaad madayneen barnaamij kale oo dhinaca sheekooyinka aynu u yara baydhnay sheekooyinka qaarna adiga laftaada cabdi ahaan kugu qabya ahayeen waxa iska dhacda oo dabeetanaad maanta Charleska lafteeda horta ila gaatay sheekooyinkii sheekada aan malaynayo inay bargo kuwa ahaydna oo sheekada dhowr shay ugu tiri warniyo sheekadaasi nagu bargo ahayd ma bahawsheeda dadku hadii jara marka sheekadaas kala soo qaado waxay moodaan bargo hadii jara kelmadda bargo umada taas uu gabagabadeen ka dhigayna barnaamijkii waxa jirta mid wiil iyo odays dhahay arrimo cadaalad noocaas ka hadlaysay bal hadda sheekada Nobel Ballari Cabdullaahi way jirtay sheekada cadaaladda ka hadlaysay sheekada iyo sheeko kale oo iyaduna waayeelka iyo sida ay u nafjecel yihiin ka waramaysa ayeen bal iyaga laftooda ma kala dhacaan ha sheekada abdow cadaaladdu waxay ahayd nin baa wuxuu soo wada koriyeen marka hadhow inay baashu nin waliba wuxuu keegaya inay tabashay iyo cadaalad caynka ay u dhacso wuxuu wada koriyeen 2 wiil wuu dhala wiil la adeer buu yahay labadii wiil buu barbaariyay oo si wacan u soo koriyay oo markii ay niman gaashaan qaadan noqdeen buu nin walba wuu guuriyay xoolana wuu siiyay nin walba meel buu dejiyo labadii nin oo maasha Allah nin waliba reerleeyo meel degan yahay ayaa odagaasi inta umadada labada inaan korinayay inaan ka wadeerka u yahay qalbigiisa aad iyo aad buu ilaalin jiray wuxuu ka duwi jiray wax alaale wixii uu isiraahdo way kala gudbayaan labada wiil ama wiilkaasi uu dhibsanaya ama cadaalad dal u tirsanaya ayuu aad uga duwi jiray oo uu dadaalay oo nin waayeel oo odaya ayuu ha
maalintii way labadii nin gaashaan qaadeen ee u reeray ay halka degeen ayuu inankii adeerka ahaa u yeeray dabeetana wuxuu ku yiri adeer war inankii buu ku yiri adiga iyo inanka hebel aan dhalay labadiinaba waan soo koriyay mudada inta leeg baan soo koriyay sidaas ay xaaladda la soo maray sida iyo sida reeraan idin sameeyay maanta nimanka gaashaan qaadka ay halka degan baatiin adeero miyaan adiga iyo hebel maalin idin kala gudbi oo aad wax aad tirsanaysaa ay jiraan inanku wuxuu yiri adeer maya waalid fiican baad ahayd si wacan baad noo soo qacan qabatay noo soo barbaarisay nimaad kala gudbin aniga iyo inankaaga hebel marka laga reebo maalin odaygii baa yaabi abaka odaygii baa yaabo isri warta la xaqu ku dhufan doonaa odaygana maalin uu isleeyahay maalin baa kugu bayday ma jirto maalin weyn buu deegeegaya bal inanka ku sulaacay inankii baa wuxuu yiri maalintu waxay ahayd waaga markaa dadku waxay joogan meel baadiye geel weyn naga lumay arintii nooca ahayd geel weyn naga lumay habeenkii dib jiray ay subaxdii aad tiri waryaalahayn geel xalita waa dib jiray hala baadi doon tago subaxdii waxa tii labadayadii inta noo yeedhay war adiguna halka ka bax adna halka ka bax oo geeli doona aniga waxa ii dirta bari ama dhinaca qorraxda ka soo baxdo qorrax ka soo baxday dirta wajigu saar qorraxda subaxdii oo dhan wajigayga hays oo intaaba way ila tagto dhididka sida ay horeeyay inankaaga hebel uu ka sii jeed markii aan baadi doonkii labadayduba ka soo noqonay nin wax soo helay nin wax soo waayay bane anigu tii casarka ayaan foolka ku qabtay oo subax galabtii oo dhan waxay iga haysay subaxdii ayay wajigayga hays inankaaguna uu ka soo jeeday maalintaas aan tirsanaya odaygii yaab ka ayay ku noqotay halka waxa aad ka tusaysaa bulshada Soomaaliyeed in badan waxay raadinaysaa cadaalad oo ay ka hadlaysaa aadamana cadaalad intuu odaygaasi de sida ugu dadaalay waa dadaali kara laakiin ismuu lahayn oo inaga lafteenu meeyna qof bini aadanaba halka wax ka tirsan doona waninka markan waxaan la hadlanaa ninkan la cadaalad baan idin sameeyaa ninka la cadaalad ma qabanaya war dadka wixii karaankooda uun baa la qabanaya dadkan ilaahay oo qanciyo mooyaane lama qancin karo ha ونحن نحكم بالظواهر والله يحكم بالسرائر قلوبته إلهي بقى قنعية وضيقنا وحا لغا يابا عبدو inaanu isagu si ula jeedaba ila waa kan ilaalin jiray xaqana buu u diri lahaa qorraxdu ka dhacday labada jeer bas uga soo jeestay de ismuu lahayna wax laga yaabaa adigoo imika nadirood betrata war adna halka ka bax oo wax ka talagalba ku yibi ma aha waxay ku tusaysaa qofku marka ay xitaa bulsho ahaan ama qofku buko inuu raadi inaad ka soo dhex saari karto meel aan waxba wada ahayn aniga waxba ahayn aad ka soo saari karto sheekadaasna waa taa شتي عدلي فكان حكله وقت جوز كي جبا وجد إنه قلت جبا برامج كله إذا قلت له حسيت مثل كانوا أعطوا قصة بعضنا أي كشرتي سوى يكون في عليه ويشرتو هذا ثانا بالنوع يرتاو ويشرتو تدي الصومالي ذا شيء قوي كذا كله دعاء هذه الشرالة إن كستو أنا واحد ريكورد ده هينو الحقوق له أما وحلا جاي بس هل شيءكو إن بقول دجانو مقشة أما بقولني وتبتنا أتراضى من الهبلاية كدعة ومثل كل شيء كيو كلام من الهبلاية كدعة أنا كنا حتى وحلا الله دحرطة هبكي قبيلة هم كل شيء كينو مدي لحظة وغير غير كي قابل كدعة تولد يدا كدعة ويا ما دام أمتي ريكورد الحين وأن واحد وكلا وحسنين شيكون كنوع عاسي سومالي ده ويسكت حوالي كان مهمة ده كل شرطنا وحوي تعجبك عدالة كل شيء كينو لوكله ما حكمة ما ماذا wixii qofku kala soo dhex baxayuun baa muhiimadeeda laakiin hadan caawa meel qabarno niraahno meel heblaaya ka dhacda waxa laga yaabaa in iraadaan haya oo baashi odagii hebel aha laakiin inagu waxaan nuxurka una ay xabaarsan tahay ayuun bay marba fariinta ay gudbinayso baynu ka waramana dadkana wax koowa ha marka tan waxay taabanaysaa waa sheekayska maado qoslo dadka waayeelka sida ay u nafjeceliin ama aadamuba markuu waliba sii weynaado imanka ninka 15 jiray ninka 20 jiray iyo ninka 60 jiray ninna hadii loo yimaado leedaha laga qaado lama yeelayo oo ambiya yeeli weydo nabi Muuse loo soo diray malkumuudka marka la yiri Muuse nafta ka soo qaad dibitana markii uu yiri malkumuudkii baan hada betana nafta nabi Muuse dhirbaax u qaadayo ilbu fuji malaka ilaahay ku noqday xidhi
nabigaadii dirtay maba ogola ha dibitana waxa la yiri ku noqo waxa tiraahdaa sacabkaaga waxa saartaa dibi inta tinay ka soo raacda ayaa bal cimri ku siinana inaad anaga laga baxsato maalinta ay dhamaato dibitana taaba baa leeyahay xurtimaad kullu haday dhamaanayaan imika waxa laga qaado oo wax kullu aatan qariib wax kasto imanaya ama la tiriya waa wixii yimaada oo imika saacad walba inoo dhacday mir walba inoo dhacda saacadii qiyaamo wal ku sii socnaa ama cimrigaaga ama geeridii ayaad ku sii shaqaysaa ku dhawaanaysaa sidaas ay tahay hadana aadami uu nafsi celiye oo inuu waxay yiraahdaan nabi aadan ba alayhi salaatu wasalaam la tusay turiyadiisa la wada tusay cimrigeeda dabeetana waxa la tusay isaguna waqti aad u dheer buu jiray oo imika nabi nuux kala weyn hana qoomkiisa intuu la hadlayay waxay ahayd 950 sanadood cumriyada dadka wara qaar baa day kun iyo dheeraad iyo jiray dabeetana qoliyaheena 60 kaayo wixiiba markii la tusay ayaa u yiri qolada cimrigooda salay umadaada kamid yihiin qolada 60 kee jiraysa dabeetana wuxuu u kordhiyay mid umada kamid ah ay mala adigu sida bugaagta ku qoran in kasta ay dadto ay noqon karto Israa'iiliyaad nabi Daawud dabeetana wuxuu yiri boqolka u dhameystiro 40 uga dhiga 40kii markii loogu ayaa 40kii maalintii nabi aad laga soo dooray baa la keenay magaciisa 40 baa yahay ila umrigiisa waa loo sheegay 40 baa yahay mas'ala 40ka wadigii siiyay duriyadaadii mid kamid aha sidoo ma siinina halayga daay marka abahe baa isku giijiyay baas dabeetana dadku saasooda jeceliye odagan waa yeelka ayaan sheegnay shaqada ku socota uu xanuunsada muddo badan buu dabeetana dhuliyaa laha oo naftuna hadii jaraalo wato Soomaalidu tiraado wallaahi bilaahi talaahi in ilaahay baa uga raaxeeyay oo talami ilaahay uga raaxeeyo raaxada qofkaas raali kama aha si walba waraaqayo odagii xanuunsaday baa waxa la soo dhigay maalintii dambe wiil yar oo dhalinyaro ah oo yahay aadna uu jecel yahay wiilkii yaraaba bahal xumada la galaa bixiyay ونفط يسقطهم وحاجة يسرق وحاجة يسنو حنوصل شيء في شوك بديلي وده يقول لك شيء فبقى نيست ونية ديسكير ونيو المحيري إلى هو يسقى يرو الدنيا وسوق عيان وحبك عرقة أبدا حنون أنا جيجو سوى دوريج حتى تجاري بقى يقدقوا أنت لما ليك قدقته يقول لي أنا جو إلى كيرو إلى أوكي أنت شو ذيك نيست إنه أما الله حنون كيسي حنون كينا كير وده جري قدون سدو جري بحاول نشاطه ضربك الله لو قلت جري بحاول نشاط إنه قدون سدو وده جو سيدا نيست إنه كيرانا اسمه برتفان أيها غور برقاه يسقي إنه كيرا بلوكر تقول قلدي وشقين السنة عنا يوحد أنت يسوق سيجا ما كنت هاي والباب كانوا فرين هاي أيه غير كل حاجة وين لها أيه وان كي حافظاس صاغر يقولي وده جيو تفاعل دوين سنوات كين أيه وحمل كشف وروح نصوص قرية واحد شو سعيد بوك سوري وين كبش كبار كلا هو لا حيوم معلوين لي وان كي بوح الصوت هاي حلقة البابكي وده جاي إنك يرتفي تبى تنا وان كان يدي ستبى ضرتين ويا عبد الله فريد ناتشرس سيا صوت شلع عيو وده جيبوا إياه وده يقولوا حمق نتري ملكموت كباون ومركها قيامها شنو ضيع لا تنحدو ضيع طبط الله كانوا أيه الله رأي بحر كنا في تسوق كان وكاس قلوا ولا يهل كنا كوارا ونار تنوى خلود تنو خلود والله هذا كوي كلامه وقاعدين فيها ويوم مقلة جري تبي تروح تشتري والله تعاد هذه بالله أقبله وملكموت كيلو نفتح قبنا يلا صدري بود وقاعد تسليك ما ضحك صدري أيوة كيلي واكن كيرا هذا إيران كيو لدي ذي يعني ولا هاي لا أيوة لدي ذي أيوة مو مثل ما بيقول كلتيسي كوري ها حتى اسمه أوروبا كينو كقعد السك اللي واد كدو وان كان واد كي يهيبه اسمه أوران ورا ذيك مكورسي هذا بخفيفه يركب مكوه حقيبه وذا يرسمي ما مكو عافظان ويسوق تاجم بلو يميو سنا كربلا يو مهارتي معافظان شكلها سنوات واحد تا ويلك iyo naftacaylka tilmaamas way runtii waxa ka dhacay sheekada xiiso badan oo aan filayo daawadayaal inay idukuna aad si qiimaad ugu heli doontaan oo qulubtiina saameyn ugu yeelan doontaan filaynahay sheekadaas way guntiga gabagabadii oo sheekada ugu xiisaha badnayd ee barnaamijkeena la gudhiga wahayd waa borgay baad sheekadii borgoana iyadana intaynu ka gaadhno ee waqtigu nagu simo inagoo dee bad aan sidaan sheegaba uu keena diidyahay nin badan oo aan laga dhamaanayn barnaamijyo dambe oo aynu haddii beedankeena daawadayaal aynu isku soo hor fadhiisan doono insha allah haddii rabiidno hadda sheekadii bargoa
iyadana waxaynu ka gaadhnay waqtiga nagu simo cabdo waa si wanaagsan sheekadaas malaha sheekada adiga laftaadu kugu bargo aan u malaynaya ereygan horta bargo Soomaalidu waa tan Soomaalidu waxay ku jirtaa umamka qayile ee waliba aadka u qayila ereyga bargo'na markiiba waxay u leexsataa u qaadato ereyga ay u adeegsanaan intiisa badan markuu qofku dhagiisa ku soo dhaco qaadka oo baalka qaadka malaha markay hawshoodu dadku marka la cuno lagu bargo'o ayay ereyga bargo'a halka u isticmaalaan oo dabeetana wax kala lagu bargo'a ama wax kala bargo' leh hadiya jaraale ereyga halkaas ay u adeegsadeen tani laakiin way ka duwantoo qaad bargo'i maaha ee waa sheeko bargo'eed waa hee sheeko bargo'eed sheekadana waan ka afeefanayaa oo sheekadu aniga laftayda inaan horta inaan bulshada lafteeda u soo gudbino ay muhiim tahay aniga laftayda bargo ay ku soo gashay oo inuu baan hayaaye laftayda bargo'san idinka laftiinana imakan deydin bargoynaya oo in bulshada lafteedina barqaadka kulleeyaa ninkii bilaabay bay day ku digtay adoo baan noo bilaabay inta dambe adan baan ka rabnaa dahay waxaan uga afeefanayaa sheekada horta nin baa wuxuu uga sheekeeyay maalintii ninkii bargooyay ninkii anaga bargooyay markii uu nooga sheekeynayay wuxuu nin baa rakaab qaaday markii uu rakaabkii qaaday ayaa rakaabkii baa gaarigii baa in badan la xisaabinayay oo magaasa waa gaari miyay ku socda islaantii heblaaya caanaha loo geeyo oo ha la qabto halka dabeetana maalintii oo dhan buu rakaabkii ayaa jactaday dabeetana rakaabkii buu goor ba ahayn dhaqaaji dabeetana rakaabkii markuu dhaqaajiyay ayuu rakaabkii uga sheekeeyay sir sheeka aad ku maaweeliso uga sheekay sheekadan oo aanu sidan buu fahansanay ayna markaan uu ka afeefanayeen leeyahay waa bargo war hadii aad bargoodaan bargo ay la soo qabanay barga magaalada lala xulaa oo qolada hadii taraad qeysha waxay tiraahdaa diga qaadka gelika hore ku qaada de bargo alla laba soo qabto meelaha kala laga ragacsta bahalkaaga dabeetana rakaabkii buu uga sheekeeyay sheekadii markuu uga sheekeeyay ee ay meeshii xasaasiga ahayd meeshay ayay go'od markaas la yiri hay markaasuu wax allaala wuxuu ugu jawaabo garan waayay gaarigii intuu dib soo kala jeediyay ayuu ninkii uga sheekeeyay oo meel fadhiyo intuu qori ku qabtay buu ku yiri dhamaystir aba ayaa saladaada meesha sheekadii dhoo dhamaystir wagaran markaa waxa ka afraya markaa kala xorriyada uga diraya waa balaariga laftayda taa ugu soo hagay dadku hayar inaga xorriyada qori lagu qabanay dhamaystir sheekada dhinaca xagga dambe waxa dadka uga fasaxana iyaguna raadiyaan iyaga laftoodu ninkii halka ka sii dhaqaajin kariyo ninkii meel ku soo afjari karaa ku soo afjari karaaba inuu ku soo hagaajiyo oo soo afjaro oo maxad xoogeeda waxa yiri oday baa waxa leeyay aad ayaa la bari tagay ninkuna nin yaraha guri badan buu markii waa la barigii tagay baa leeyay marka ayaba inuu shakru noqdo oo qoladan de aynu dabeetana wuxuu yiri way mahadsan yihiin qoladan casuunti mahad xoogeedana waxa iska leh qolada sidan oo kala damacsan marka ilaagu ma waxay leeyahay baasha muhiimadeeda waxa leh cidda soo dhamaystirto baasha ee dadka baasha bargo'a kala qayb qaadata sheekada cabdow hadii aynu bilowno sheekadu waxa weeye reer inta reer ka kooban yahay reerkaasi waa reer miyigan reerkaasi aabe iyo hooyo iyo laba wiil iyo inan labada wiil mid baa reer leh oo mudareer laha nin dhoobirana geela ayuu raaca reerkaasi waa reer qoys oo meel degan odagii reerka lahaa ayaa hediisi tim oo geeriyooday odagii markii uu dhintay baa ee uu meesha ka baxay ma mas'uuliyadii waxay ku soo baxsatay inankii reerka ugu weynaa baa reerkiisina reerku la degan yahay meeshu degan yahay hooyadii iyo inankay walaalahayn iyo walaashii iyo xoolihii iyo wixiiba ninkii baa mas'uul ah dabeetana arrinka wixii hoose iyo wixii guud iyo wixii magaalada ka galay iyo reerka safarkooda iyo waa nin mas'uuliyad ku soo baxsatay wad garanaysaa ninkii oo mas'uuliyadii sidii ugu soo baxsatay ayaa mar qaliya waxa qaniinay gurigii intuu ka tira leeka inankay walaalahaayeen inantii gabadhiisii hooyadii ilaa dhoobirkii geela raaciyo torqoslihii wixii way wada qaniineen dabeetana ninkii baa meel allaala meel lagaga kacay ayuu garan waayay cidina waxuma sheegtay qof waliba uu buustaama hadduu yiraahdo halka xoolaha la waraabiyo hadduu yiraahdo halka ka bacdo hadduu yiraahdo halka guriga hal oo hadduu yiraahdo sida la yiraahdo qof waliba ninka dhig jalaq uma siiyo waxna looma sheego
nin waxba diidaya hadii qofka bini'aadamka aad wax u sheegto ama wixii uu diidaa ama wax buu yeelaa laakiin buuftaankan ayaa ninkii markii muddo wixii ku jiri kari waayay ee confuse ka qaaday ayuu maalintii dambe jiray war sidan inta waa nacasime wayna keentaa deesha bal waxa jira ku ogaaday dad arrinta bal xalitiday ninkii baa maalintii dambe magaaladu qabtay tuulada dabeetan markuu iska soo shaahay buu yimid dabeetan wuxuu yiri maanta magaaladii waan tago magaalada iyagana isaga oo kala sheekeeya dabeetan wuxuu yiri meesha nooca Soomaaliland kaba fogay oo koba noocaas waxa lagu sheegay ha ni sheeka ayaa lagu sheegay ninka sheekhina waa nin waliyo oo nin wali siraataho dadku wadada iska reermiyo markay waliga siraata iyo maqlaan ayaa dareengelaya ayaa halka ku jiro ninkaasi qof waliba muraadkiisa ayuu u sheegtay oo dabeetana intuu u duceeyo ayaa sida ilaahayna sida ugu dhaqsaa badan leh hawshiisa ugu birbiriyaa oo ay hawshiisa ugu fushay arinta markii uu sheegay buu ku yiri oo maxaa dabeetana ninkana khadar baa la ilaahdaa Soomaaliduna magac khadar waa magaca ay waliyanimada iyo nabi khadar waa ku yiraahdaa ninkii khadar ee waliga ahaa ee Muuse qisada dhex marisay dabeetana iyaga khadar iyo hadii ay wax soo raacaan halkaana way kasi shidaal qaataan ninka maxaa la ilaahdaa khadar oo adigu halka khadar meel hoga buu ku jiraayo dadku toosan loo kumaanay hoga hoostiisa la istaagay halkaas dabeetana khadar salaamu calaykum asalaam dabeetana muraadkaagi ayaa halka ka sheeganaysa marka wadaadkaas muxuu ahaa wax shiruha mise waxa sheegtay wadaadkani waan ku soo wadaa wuxuu noqon doonaa inta markuu dhagaha ugu riday ee reerka iska seexday ee laba saddex casho ka dambeysay ayuu yiri waan safraya reerkan u sahan tagaya waan safar tagaya muddo dhowr cashaban maqnaanaya 4 cashaah reerku waa ka ninka walaalaha warda ninkii ada meesha u ninee reerku waa ka islaantii hooyaheed hooyo waa ku ka gabadhiisi dadkii uu la sii wada ballan subaxdii buu jarmaada oo tagay markii uu maalin sii maqnaan ayaa dadkina habeenkii sheekadii hayaan waxay saadeen intuu maqan yahay ayaa ka faa'iideysta BYA taga khadar u taga ha wadaad khadar la yiraahdo ma jirey ninkii baa sidii u sii socday hoggi galay dabeetana inankii walaalaha inuu xumadaysan oo urday bay soo taago dabeetana wuxuu yiri salaamu calaykum khadar salaamu calaykum masuu calaykum asalaam halkii baynu ka sheekadii bilaabo reerkan degan baan nahay intaada sidaas odagino abaaha marxuumkii Allah yarxam raahimiina mudada noocaas uu siinoola xoolo noocaas uu ka tagay niman walaalanahay ayaa ilaahay carqalad naga dhigay oo ninkaygaas de nin la siman baan waxaan doonayaa inaan xoolaha barkayga qaato oo gabadh guursada sidiisa soo barbardego oo de nin ismaamulan noqon ninkaas xoolina ima ogola meel allaala meeshan salaada wax u dhaqaajiba ninkaas ay surtaagan bal khadar hawshayda igu ducee ilaahay anaga ninkaan walaalanahay soo kala furfuro dabeetana wuxuu yiri waan gartay hawshaadana waa la aqbali doonaa waan ku soo duceynaya waa kaasoo inankii buu iska soo diray khadar inankii oo soo faraxsan oo leeyahay iyo ba soo noqday oo gurigii iskaga soo noqday inantii walaalaha ayaa iyana timi salaamu calaykum khadar calaykum asalaam khadar waa heblaaya la yiraahdaa reerkan iyo halkan degan baan nahay odagin loo abaaha waa dhintay aniguna inan baan nahay ninaan walaalnahay ayaa ilaahay nagu warsheeleeyo hawsheedii sida hor taagan waxaan doonayaa anigu xoolaba kama rabee oo wadadii inanka ayaa ka yara baydhasaaya inan gabadh khayr loo meel degan oo ismaamusha aan noqdo dabeetana ninka allaala ninkan jubu u yiraahdana ninkaan walaalanahay ayaa rag ka baqaya anigiina sheeka iyo haasaawo iyo shukaansi iyo walaalo wixii uu galiya ma jirto dacaynkan ila damca garamaaya deynaan anigu guunoobena ma rabo ee waxaan doonayaa intan labeenta leeyahay dhawankaygu shaqeynaya ee raguna ilaha saawaya ee eeganayo inaan de hawl galo ee bal anigana sheekh ducada igu soo dhufo dabeetana waan gareynay buu yiri heblaayo waan ku soo duceynayaa in wanaagsan baa tahay oo ka nabadgeliyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inay taqabbal Allah hawshaadu noqotay inantii waa ina waa ka timi waxa timi hooyadii islaantii hooyahay ayaa timi gabadhiisa way dambaysaa islaantii hooyahay baa timo dabeetana maqasay islaantu way islaga baraalaadaho islaantu gabigeeduba soo way cabursan tahay oo inankan iyo inan tanaaba dhow iyagu dhalinyaraha islaanta sheekhi bay tiri salaamu calaykum asalaam hooyo bal warama hooyo khayre ee waa islaan dhudul la yiraahdo marxuumkeedina bari dhaweytan dhito halkan degano aniga laftaydu sidii marxuumkii u tagay de islaam baan hadda iyo laba ku hadhayo waxaan doonayay inaan bal odayro dambe oo aan weysada isku dhowrano
aan waxeeyo oo aan reer wax waxeeyo laakiin waxay hortaagan aanan afkaaba uga hadli karaynin midaan dhalay ayaa sida noo hortaagan oo yararka inanka iyo inanta yaryari iyagu wax badan oo sidaas oo shiddo badan ba ma lehe ninkaasay taladu ka godaan ninkaasina hooyadaaba iyo salagaasaan ni soo maraya ma ogola balshiiq bal hawshayda ka waran weliba ninku igama fogo ninkan dhoobirka ah geela noo raaca ayaa baan anigu ku haystay oo aan islaha iska wada dawaaftaan oo islaamta iyada oday kale iyo waxaaba uma wada guriga lixdiisa ayaa ka bilowdo ninkan turkus leeyahay wadin xoog weyn geela u raacayo ninkaasay islaamtu ishaaqsata dabay tara islaantiina wuxuu yiri horta uu yaabay khadar ilaa isaga marna sidaan iska dhigayay hoostu ka yaabo markii hore inay ka yarata lama yaabin islaantan dhig oo dawladda iyo turkus leeyahay haddana kinigu adkaysto dibitana wuxuu yiri xaaji adigana hawshaada taqabbal Allah عدو إسلامتنا هوشيتي ما دميستو ما يري تقبل الله أدينا lagu soo duceynay hooye halkaaga iska si gurigaaga qabo Islaamtana toobiyahay soo qaday gurigeedii ay iskaga soo noqotay qof walibana sidiisu u faraxsan yahay reerkiisa ma oga ee qof waliba turbaan gaara ayuu hoosta ka tumanaya oo leeyahay talo hawshaadi goormay ku kala dhacsan gabadhii ninku qabay ayaa timi تبيتنا مركب ميشي سو تاك تبيت الخضر السلام عليكم وعليكم السلام شكرا رما خير وانا قبل هبلايه هبلا يراضو دي reer ka nooca saban ka tirsanahay reer kana odaygi soo tagay hana waa dhintay islaantii soo dooday heedna waa isku carqaladeysanahay reer ka anigu ma rabo ta kala mid kalaaba ii dheero ninkan laftiisa berigi abihi noolaaban xoolo iyo wax noocaasa ku soo galay anigu nin kale ayaaba jacaylo naga qabiya ahaayeen ninkan laftiisa nabdiga hoose kama jeceli marka waxaan jecelahay inuu reerkooda naga dhex saaro oo tuulada igeeyo oo tuuladana hooyaday ayaa degan oo aan halka ugu tago ninka aan hoosta ka jecelahay waxaan doonayaa ninkan si step step ay isaga fasaxo aan ninkan meerkayga ka qaato aan ninka kale wada dawaafno oo dadkan qof walba quluubtiisa waxba ku jiray bini'aadanka de waxba qof walba ka dhex guuxayo reeraha dhisan qaar baa reero kala ku haysto oo nin gabadh laba gabadh kale meel ku haysto waxba de waa aadami oo meel walba waxba dhex maraya gabadhan dabeetana nin kale ayaaba iyaduna jiibtay jaanta la haysa waa jacaylada wareerka ah iyadoo halkan la dawaafsa xaqana ay jiibtay jaanta kala hayso waxaan doonayaa ninkan inuu halkaan geeyo anigu sababta ayaan dabka ugu shiday ila qof waliba hawl buu leeyahay islaantu dhoobirkii doonaysa inay kaniin guursiyo doonaya ninkan qof waliba wax buu qaninsana ninkii odayga ah wixii horeba iska saleen lahayd macal hooyadii marka lagu daray dhoobirkan ay doonaysa inay kan walaala yihiin way masalooyin fudud oo xalkooda qaban karayee ila isaga marna sheekha marna khadare marna ninkii reerka lahaayeen waa eelkaba kii dhigabay u orgootamiya ninkii hawshaba laga cabanayay baa dhawna ergoonaya ayaa waxa uu leeyahay gabadhiisan sheekada ka wareerisay gabadhiisan ninka kalena doonaysa isagana jiibta hagan kala wada ayaa ka yaabisay dibadna wuxuu naabalaadna waa gabadha hawshaada bal waa la eegi doonaaye adna orod soo dareenkiisu bedelay oo ka hoostiisa dareenku bedelay ay marba godka odayga ku xamaali gaadaba gabadhaadu taa ka dhex tiraada de jooro daba oo dhigasa odaygi sheekhayo gibil madoobaaday dadkii si yaro fudud buu jawaabta ugu dhiibay ayaa gabadhan jawaabteeda way ku adkaatay dibintu ruuga magaasuu naabal waa leegay hawshaade adna orod si degdeg leh ayuu soo baxo maalintii ku xigtay intuu aga soo wareegay buu yimi muddo yar markii uu joogay ayuu reerkii la qorigoodu hayaa ayuu inankii u yeedhay wariyaa wala doorxun khayro wariyaa deedna waxba ima sheegtid aniga laftayduna isma wareysano oo ninkan waa nin geejira oo geejirihii la sheegay leeyahay arbaxad saw yeeli waday yiri gelin karona geela raaca ka dambana habeenkiina waa seexday goormaan dhacayda de waxna isuma sheegno bal waxa tabaysan nin weyn oo gaashan qaada waa tahay reer samee oo bal gabadh la kaalay oo aan xoolahan de barku jiro aad deyn reer leeyahay noqotidi leeyahay wax kale ma garanaysa maradaana de la wamiyo aqoon iyo wax kale iyo ma jirtaan xoolaha gaar de dhaqati reernaad sameeyay halka way buu inankii in sheekhi iyo ducadii iyo wixii loo aqbalay baa durbaana
ayuu tunto iidiisa weeye waa intuu doonayay inankii waa hawl gala inantiina uu yeer kuna walaal bulwarno khayro deena weynoo gaashan qaada baata way ma ka taa urqaade waxaad sameynaysaa aniga waxba hayga wareegaysanine ragga inaga ilaali wixii bool shirka huna nin wanaagsan oo macquul ah inoo keeno inamadan deegaankeena geeyigeenna iyo area jooga cigaalka ina wanaagsan oo kaaso inantiina halka ayuu yeelan ku daadagino hablaad laga lama hadlo heblaayay waxaas ayuu iyana fasaxa oo in awoodaheedii ayuu sii daayay iyana waa intii doonayso oo ay wada shaqaysan jireen oo u diyaarahay oo islaayn ninkan u ba ku hortaagan ayaaba istiducadaadii adna waa la aqbalo inantan halka ayay hawsheedii ka qabsatay islaantii buu tagay muddadii yare gudaheediiba inankiina buu keen isla sanad iyo laba gudahoodba inankii waa u dhisay inantiina waa la guursaday islaantii hooyad buu yeeray soo hooyo bal roo khayro de waa kaaso odaygii marxuum kara waa iska dhintay inantii heblaayana waa kan guursado de darkii waa kuwa dad waaweyn qoray bay noqdeen saddex ruuy deegan inantiina waa la guursaday inankina waa kan reerka sameeyay isna waa kan reerka hore lahaa adiguna maad odayar isku degtid islaantii baa taa loo iyo anigu waxba ka garanayo mar haddaan adigu ku talisay bariyeelkeeda de loo yimid inaga daysido islaantii waa de oo garanaysa hooyo la yiri hawlka islaantii oo dhinacna wixii ka hosta ka doonaysa ayaa dhinacna ka qajisho basay taa loo yimid inaga daysido bariyeelkeeda foodadii de wejiga saartay markaasuu weliba ku yiri ka waran de ninkan dhoobarkaaga geelay noo raacaa hebel wani wanaagsan oo aamin oo odayga marxuumkuna uu amaani jiray inta xoogaa ku tartaray aniga laftayduna wani wanaagsan ka waran basayta loo baayo maariga adigu leedahay ninka toor quslaha geelay noo raaca hooyo miyaa de baryeelkeeda haddaan adigu ku talisay yeelkeeda waa iskala wadwadaya uu ka baxo islaantiina islaantii halkii baa hawshay ugu dhamaatay oo de farxad bay de dilaacigaan ilaa waxa loo fasaxay wadaadkeedii iyo yara marxuumka muddo badan ayuu de sii mootanay halkii bay yana hawsheedii reerkii markii uu khalisay ayuu gabadhiisii ku yiri gabadhay halkan reerkeenu deemaka waa ka ninkii hebel la guursaday heblayna guursatay inaguna waxaan doonaynaa wixii xoolaheena iyo wixii intaan ku xaysanno wixii aynu iibin karano iyo waxaan dhaqan karano in tuuladii iska sii qabanno oo ay meeshii aanu qabanno dabeetana weeye gabadhina hooyadeedu tuuladii joogtay iyo ninkii ay jeclayd iyo hawsheedii ibay iyana loo galayo farxad ayay kala dilaa gurigii bay xidhxidhay oo wada diyaarisay in mari baa ceebta ku dhufteen markii ay anbabaxeen ee ay magaaladii ay qabanayeen u dhaqaaqeen degayeen ee ay jidka sii socdaan barta ka marayaan ayuu ninkii odayga ahaa خضرتي والقاعدة قبل يسوي له هروب إلى سوي شيء خضرتي برا هو قلي أيا والله ما ضاع دم لقسي اللي بدأ ينضد بيستر دم لقما سيني يسقى الدم سكسي تبي تندر توشيل الله حياي الله يندحيجي اللي هي بلاي كماركو حمسة يرميي دواي عباد بوسال ويسقول لسه تبي تنور معاكو هلاي ويقع عن تقبطي نهو جاي من مصباح يقول طفي نبالي يندحي فوق كبر دنيكيو عندنا أي أمر حاصل كعن تسوق بسط يدو يد لبعض وهولي هذي أي فشرسي أيام الله يدبر أو نكيري إسلامتي يروح ياهي إن دار عيد كورة يجوا صو أي وضع إسلامتي إن دار عيد أي أو خرصة أي كوكو تيوم مكاسي كوكو تيوم مكاسيري مكوجة إن دار عين ها تدعون بيكون ترتتا وابا قبل ديو وابا تيجي لحق على تيو هوشي إن دار عيني نور حاطي يجوا نكين إن دار عيد هاي سنة أي تكتب إن دار أنتي صدق كمان هم مردد إذا كنا سنة صاير تبتنا واحد تريوان شو قرنيو نكينا مركيون هلا كامريني أيام مالا بولالو تشيرايو ها مالا قري تشبو تشيرايو ما مصباح كتفاي بليه باس هل كنا وحلا آخرية وين دبالة نيكي بقى مدين ديه سيو أميني يو دكتور يحبه متشراني اللي بحناني يوم كسالي سأل لو داي نيكي يو إندلا أي قبل دي رفير كوديس كريسو دكتي قبل هولي هيدي وكاركها أي نيكو كرينسي أي أوبن بعض أي هي أوبن بعض ninkii oo indhalina gurigiisa ka jooga halkaas uu xuqaataa bukoorad weyn oo ku tukubo oo iskaga ilaaliyo oodaha iyo waxa soo inta guriga iyo nawaaxigiisa iyo ayuu wareegaystaa daarada oo iska jooga reerku halkaas iska jooga
islaantu hooyadeedna ninka mid dhabeelo haayo waka dabeetana gabadhiiba waxay samaysaa nimankii dalin ku indhaleeyo isku haleyn maahe walba ninkii ay doonaysa in la dawaafta ama la sheekaysato ayaaba la ballantay ninkii guriga keen ninkii baan ay ku tiri waargu indhaleeyo bir arki maaye de iska soo baalmar miyuu ku urinaya soo martay naa walaayo waayo mid baa soo hulushay guriga asoo soo hulushay siri guriga kala ninkina lagu arka waxbu arkaayo uu isna tirayaa bakooradii weyneedu sitay ayuu baasha tuuladana bahal dameeraa baan looga taagelayno habeenkii ku soo doonanayo bud buu qaadayo ninkii ma soo daxay qaadayo madaxa fujiye ninkii iyo gabadhii baa markuu ninkii takhray intay aragtay ninkii intay nabarku qabatay oo masariyo waxa ugu xidhay ayay tilwaabi waaya orada carab ninkii ba magaaladii nabar xaqtaro ka dhigtay loora kari baa ninkii dhalaaba gurigiisa tago sida dabeerkii dilay bug madaxa ku dhufta gabadhii waxay istile war dameeru mooday halkan uu ka sii dhurmaya leeyahay meesha tuuladana alla tuula dameera badana durdaas waxyaabo bawda ma garanaysa oo dameeraha kale ku dhufta oo waxbu sidaa camalaqaya tiraba 3 nin markuu madaxa ku dhuftay ayay gabadha tiri hooyadii aabay wasaani may dhalee ragii ka soo hooyay adna hawlaaga ku fuli waayay de wax ku tarimaayay isdhaaf gabigii saba indalaanta wasaleele ninkaba u dhamee ninkii baa waxay samaysay waxa loo milay sunti markii ninkii loo milay baa loo walaaqo waxa leeyahay markii qareeda loo geeyo u geey koobka ka saaro sunta markuu ka saaro ha ka gugto ninkuna de waa nin dhaqdhaqada oo subag iyo caana iyo waxay tahay filimada uu loo socdo uu arkaya markii loo keenay qadadii koobkii arkay ayuu koobkii sunta ahaa intu daadiyay sidii mid barka cabay barbu daadiyay ay soo booday alla heblayo indhahaygii alla waa maxay dawadaadii siistay na maxaad isugu kay dartay alla hayaay gabadhii baa yaabi abakaag oo tiri wariyaa ma suntii aatisaaba indhuhu ku dilaacay islaantii hooyadeed oo muddadii ay meesha ninka keentay iyaduna indha beeshay oo joogtay ayaa tiri naa baaqi ma haray bal noo keena waxa ninka indhuhu ku dilaaceen islaantii baa baaqigii haray hooyadeed ayaa leey u soo qaaday ayayna cabtay bal in indhuhu qarxaano baaqi bay cabtay islaantii ka hagugtay ninkii oo indha qaba gabadhii iyo filikeediina haya islaantii saddeeduna dhimatay reerkiina muddadii isugu dambeysay oo wax walba daahir yaashan isna u garanayo indhihiisana u soo noqdeen ayaa gabadhii sidaa soo hoostaagay gabadhii baa wax ku noqotay kaaf iyo kala dheeri bar haddaba halka ay sheekadu horta salligana saacabto waa halka ninkii waa kan oo soo indhihiisa soo qabay oo kan indhihiisa soo noqday islaantii saddeed ay dhimatay gabadhii iyo reerkii qorigoodii u haya isagu muxuu falayaa haddaba imanka sheekadu halka ay dhiganaysaa maxaa ku xiga halka waa halka ila uu iska soo ninkii baa indhihiisa isaga dilaacay ma aha ninku waa reerkiisa iyo weerarkan ugu soo qaaday raggan guriga yimi iyo hawsho dhan la socda iyo gabadhan waxay hoos u wado miyuu furaya mayuu ku haysanaya ma hawsha halka laga sii galayo waa halka baashu bargo magaca kala baxaysa waa halka umuraha isku cayn iyo bayda go'an leh ayaynu ku joojinayna daawada halkaas inuu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii aanu sheekadii bargo ahayd waxaan idinka codsanaynaa inaad idinkuna raadisaan haddii beedankeedahay sheekada inta ka dhiman tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijyadeena kuwa xiga haddii rabbi idmo intaas ayaynu kusoo koobaynaa barnaamijkeennii waa cabdiladiif xaaji muuse keenadiid iyo anigoo cabdisamed axmed yuusuf iyo sakariyeere oo dhinaca farsamada iyo kamarada noo qaabilsanaa tan iyo intaynu